Sheekada 16aad Samatabixiyaashii. Markii Yeshuuca dhintay, Israa'iiliyiintii Ilaah ayay ku caasiyeen oo waxay diideen inay amarkiisa raacaan xaqana ku dhaqmaan. Waxay kaloo diideen inay Kancaaniyiinta ka saaraan dhulka ballanqaadka. Israa'iiliyiintii waxay bilaabeen inay caabudaan asnaamta ay reer Kancaan caabudayeen halka ay ka caabudi lahaayeen Ilaaha xaqa lagu caabudo. Israa'iiliyiintu ma aysan lahayn hogaamiye ama boqor haga iyaga, oo qof kasta waxa uu bilaabay inuu sameeyo waxa uu rabo iyo waxa la wanaagsan naftiisa. Caasinimadii ay Ilaah ku caasiyeen darteed ayaa Ilaah Israa'iiliyiintii ciqaabay, oo wuxuu ka gacan sarraysiiyey cadowgoodiina waxay xadeen Israa'iiliyiintii. Waxay burburiyeen hantidoodii, qaar badan oo iyaga ka mid ahna way dileen. Markii sannado badan Israa'iiliyiinta ku jireen sidaas, ayay Ilaah weydiisteen cafis iyo inuu samata bixiyo oo ka badbaadiyo cadowgooda. Kadib, Ilaah wuxuu u soo diray samata bixiye oo ka soo badbaadiyey cadowgooda oo dhulkii Israa'iiliyiinta ka dhigay nabad. Mar kasta oo ay helaan nabad oo Ilaah caawiyo iyaga, waxay iloobaan inuu Ilaah soo badbaadiyey, oo markay nabad helaan waxay bilaabayeen inay caabudaan asnaamta. Kadib, Ilaah wuxuu u soo diray reer Midyaan oo ahaa cadowgoodii u dhowaa, si ay uga adkaadaan Israa'iiliyiinta. Midyaantu waxay qaadanayeen dhammaan mirihii ama abuurkii ay Israa'iiliyiintu lahaayeen 7 sannadood. Israa'iiliyiintu aad ayay uga cabsan jireen Midyaanta, oo xitaa mararka qaar waxay isku qarin jireen meelaha godadka ah si aan loo arkin. Ugu dambayntiina Ilaah ayay u ooyeen oo u qayshadeen si uu u badbaadiyo oo uu uga saaro dhibta haysata. Waxaa jiray nin la yiraahdo Gidcoon. Maalin ayuu qarinayay hudud si aan Midyaantu u arkin oo aynan uga qaadan. Malag ayaa u yimid oo ku yidhi, Gidcoon, Ilaah ayaa kula jiro, tag oo ka badbaadi dadka reer Israa'iil cadowgooda Midyaanta. Ilaah wuxuu ku amray Gidcoon inuu baabiyo sanamka aabihiis. Gidcoon aad ayuu dadkii uga cabsaday, kadibna wuxuu u sugay inta ay habeenka noqonayso. Markii habeenkii la gaaray, ayuu sanamkii aabihiis burburiyey oo ka dhigay jabjab. Halka uu sanamka ahaana wuxuu ka dhisay meel Ilaah lagu caabudo oo lagu wanqalo. Subaxdii xigtay, markii dadkii arkeen sanamkii oo la burburiyey, aad ayay uga xanaaqeen, waxayna tageen gurigii Gidcoon si ay u soo dilaan isaga. Laakiin Gidcoon aabihiis ayaa ku yidhi, idinku maxaad Ilaahiinna u caawinaysaan? Haddii uu Ilaahay yahay, isaga ha isbadbaadiyo. Markuu sidaan dhahay, dadkii way ka leexdeen Gidcoon oo ma aysan dilin. Kadib, Midyaantii waxay mar labaad u yimaadeen inay xadaan reer Israa'iil. Dad badan oo aan la tiri karaynin ayay ahaayeen. Gidcoon ayaa isugu yeeray dadkii reer Israa'iil kuna yidhi, dagaalama dhammaantiin oo iska dhiciya Midyaanta. Gidcoon 2 calaamo ayuu Ilaah weydiistay si uu u ogaado inuu Ilaah rabo inuu badbaadiyo reer Israa'iil. Ugu horrayntii, Gidcoon wuxuu dhulka dhigay maqaar ido, wuxuuna Ilaah weydiiyey inuu maqaarka qoysiiyo subaxii, laakiin dhulka kale uu qalalnaado. Ilaah taasi wuu sameeyey. Habeenkii labaad, wuxuu weydiistay inuu Ilaah maqaarka dhulka yaalla qallajiyo, laakiin dhulka uu wada qoynaado. Ilaahna sidaas wuu ka dhigay. Intaas kadib, Gidcoon wuxuu isugu yeeray dhammaan ciidankii reer Israa'iil, waxaana u yimid 32,000 oo dagaalamayaal. Laakiin Ilaah ayaa u sheegay inay dadku aad u badan yihiin. Kadib, 22,000 oo ahaa kuwii aadka uga cabsanayay inay dagaalamaan ayuu ku amray inay ku laabtaan guryahoodii.
ilaah ayaa gidcoon ku yidhi weli waxaad haysataa rag fara badan. kadibna gidcoon dhammaan wuxuu u kala diray guryahoodii laga reebo 300 oo askari. isla habeenkaas ilaah wuxuu gidcoon ku yidhi orod oo tag xerooyinka midyaanta, kadibna dhegayso waxa ay leeyihiin, oo markaad maqasho waxa ay ka sheekeynayaan dib dambe uma cabsa doontid. gidcoon wuxuu tegay xeryaha midyaanta, wuxuuna dhegaystay askari reer midyaan oo mid saaxiibkiis ah uga sheekeynayo riyo. markuu uga sheekeeyey saaxiibkiis ayuu saaxiibkii ugu jawaabay, riyadani waxay ka dhigan tahay in gidcooniyiintu ka guulaysan doonaan midyaanta. kadib markuu gidcoon warkii maqlay, ilaah ayuu caabuday oo kalsooni ayuu ka sii helay. gidcoon wuxuu ku soo laabtay askartiisii, oo mid kastana wuxuu siiyey hoon ama buun, weel dhoobo ah iyo toosh. kadib waxay weerareen oo hareereeyeen meesha ay midyaanti jiifeen. kadib askartii gidcooniyiinta waxay jajabiyeen weelashii dhoobada ahayd ee ay ku qarinayeen iftiinka tooshashkooda, waxayna ka dhawaajiyeen buunkoodii hal mar. ilaah ayaa jahwareer ku riday midyaantii, kadibna waxay bilaabeen inay isdilaan iyaga dhexdooda. isla markiiba gidcooniyiinta waxay fariin u direen reeraha kale ee Israa'iil inay yimaadaan guryahooda oo ay ka caawiyaan inay ka eryaan inta midyaanta ah ee meesha ku hartay. kadibna qaar badan ayay dileen, intii kalena waddanka ayay ka saareen. maalintaa waxaa dagaalka uga dhintay midyaanta 120,000 oo qof. maalintaasna ilaah ayaa badbaadiyey Israa'iiliyiinta oo guuleeyey. dadku waxay rabeen inay gidcoon ka dhigtaan boqor, laakiin gidcoon ayaa si xigmadi ku jirta u diiday inuu qabto xilka ay rabaan inay u magacaabaan. isla markaana wuxuu ka codsaday inay siiyaan in ka mid ah dahabkii uu nin kasta ka qaatay cadowga. gidcoon dahabkii ayaa la siiyey oo waxay u noqotay dahab aad u badan. kadib gidcoon wuxuu dahabkii ka sameeyey marada ay xirtaan wadaadada, laakiin dadkii waxay bilaabeen inay u caabudaan sanam ahaan. ilaah ayaa ciqaabay Israa'iiliyiinta sanamka ay caabudeen darteed. cadowgoodii ayaa ka guulaystay iyaga. ugu dambayntiina ilaah ayay weydiisteen cafis iyo dembi dhaaf. ilaahna wuu ka aqbalay, wuxuuna soo diray nin kale oo samata bixiya iyaga. sidatan in badan ayay soo laablaabteen in Israa'iiliyiintu dembaabaan oo ilaah ku ciqaaba adduunka korkiisa, kadibna ay cafis ilaah weydiistaan, ilaahna uu cafiyo iyaga. sannado aad u fara badan ayuu ilaah u soo dirayay samata bixiyaal fara badan oo Israa'iiliyiinta ka badbaadiyey cadowgooda. ugu dambayntii dadkii waxay ilaah weydiisteen boqor. waxay rabeen boqor aad u dheer oo xoog badan oo dagaalada horkici kara. ilaah ma uusan jeclaysan codsigooda, waayo mar kasta way ku caasin jireen isaga. laakiin wuu ka aqbalay codsigoodii oo wuxuu siiyey boqorkii ay rabeen.